oo hadalka qarinaysa maxamed u imaada markaas waxay dhahday maanta wax ma ogeed ceebaan ugu dhacday waa fadeexownay marka adiga shaqada aaday anigana maxaa la dhahaa suuqa adeeg yar ka doontay haddii aan guriga imaadabo masado wiil dhalinyaro ah guriga kasoo baxaayo gabadhaan gabar ma ahan gabadhaan shaqo waa inaad ka qabataa gabadhaan waa inaad saan yeeshaa maxamed wuxuu ahaa aaba aada u degan oo naxariis badan waxay sugaysay ayaga inuu gabadhiisii inta qabto dilo ama wax kale oo aada u daran oo ku sameeyo laakiin wuxuu sameeyey wuxuu u wacay Sucaad wuxuuna weydiiyey arrinka eedadid ay sheegayso in uu run yahay inuu been yahay laakiin Sucaad waxay tiraahday way inabaysaa aabe aniga wiil iima imaanin gurigana maanta banaanka xataa kama aanan tagin waxaa soo orday wiilkii yaraa ee 10 jirka ahaa ee Sucaad la dhashay wuxuuna yiri aabe maantoo dhan aniga iyo Sucaad waxaan wada akhrisanaynay ama xifdinaynay qur'aan subxaanallah ayadana wixii sheegayso waa waxaan caadi ahayn maxaa soo socda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك حر الموصولة وإذن سلامي من وبوء جوبتان سو دواوة انت اوتها معلم وناكسن انت اوتها هبين نمو وناكسن أصحابي وإذن سلامي أصحابتي اللي جوبتو هذا هاي لايك شير كومنتي waxaan ku codsanayaa asxaabe inaad share gareysaan بليز in aad leegtan ilaawinin leegtu ay iska ilaawaysiin videoga intaadan bilaabinin oodan daawanin dhagsi insha Allah waa codsi tan kaleeto waxaan ku jirnaa maalmihii ugu fadliga badnaa maalmaha insha Allah dhamaanteen ilaaha naga dhigo ku ka faa'iideysto labadan bari qisada idin soo deewaayay waa iska xanuunsanaa videoga ugu dambeeyay anoo hargab isoo haayo idin duubay maalintii marka habeenkii ay idin soo gelinayeen anoo sii fiirna gadaal video kala soo dhagan yahay soo daaya aada wallahi madaxa iyo xanuunaa indhaha xataa si fiican wax ma ugu fiiri karin waa iska soo sameeyay waa idin soo dhigay waa in ka raali gelinayaa waxaa idin leeyahay ii share gareeya asxaabtiin u dardira ila shaqeeya wada shaqeyn daahfuran waxaa in ka rajeynayaa asxaabta cusub oo gadaal nooga soo biirta idinkana ha ismartiyeenina janalku waa janalkiina idinkana nagala qayb qaata sheerta like inta waa idinka rabaa walaal adigana deeta markuu horeysay meesha gaduudan madow nooga dhig insha Allah maanta xataa madaxa iska xanuunayo waa dareemi kartiin aniga dhan xaaladeyda caadi maaha laakiin ina qisooyin badan waa idin soo wadaa gabar furitaan iska badbaadisay qisadeedu dab iyo holaca ama gurigeeda badbaadsatay oo ninkeeda soo ceshatay iyo maxay sameysay qisadaasna in soo wada laakiin qisada maanta aan wado waxay ka hadlaysaa dulmiga weliga bil aadan ha dulminin ilaahay يعني قفك أو الظلمية أو مسكينك أحد إلهي بريو حجاب ما ودحيس الدعاء إلهي أصدق وعلى أقبلها ودي بالآدم هسقط من سببته إلهي وحور نفتي سكحرمي ظلمي أنا كان أحد ونوديد مرك قف ولي هالظلمين أديك هالظلمي هذه الربو لكن استيلالي إن أديك مظلوم ظالم نقطي قصدان waxay ku socotaa aabaheysto laba caruur ah oo xaaskiisa ay dhimatay markuu xaas kala guursaday maxay ku sameysay gabadhiisa laakiin ilaahi waa qafuur raxiim waa lagu ciqaabay oo ciqaabtii ee gabadha yareed ee marsi isdhiisay ayada ayaa la marsiiyay waliga xasadka iyo dulmiga ma fiicna qisadeena intaan u gudan galin waxaa kaloo idin leeyahay haddii qisooyinkayga ay idin cajabiyaan maxaa la lahaa waxaan ka codsanayaa inaad leegta mar walba i saartiin haddii idin cajabinin inaad hoos igu soo qortiin commentiga waxaan iska bedel insha Allah janalkeena arrimaha familka oo ku saabsan yahay haddii wax qalad ah ka aragtid waa ila share gareyn kartaa walaashay iyo walaalkay adinka wax idinku ahay intaan hadda maanta i daawanayso 200 boqolka qof ka badan adinka waaye
marka waxaa rajeynaa inaa intaas ka badan ay fiidiyoyadeeda noo gaaraan adinkan nagu saacidi kartiin insha allah noo like gareeya. qisadeena inta aana bilaabinin maxaa lahaa leegta jag noo sii soo raac tareenka iyo kaa tegin inuu buuxsamo laga yaabo. qisadan aa ku bilaabay aabahan qisada ay ku socoto iyo gabadhiisaba magacyadooda laguma xusin qisada, laakiinse qisada dhadhan iyo macaan iyo nuxur noogu yeelato aniga magac u bixi doono. aabahan waxaa u bixiyey maxamed, gabadhan waxaa u bixiyey sucaad. aaba maxamed xaaskiisii markay dhimatay waxay uga tagtay 2 cunug ama gabar 17 jir ah. gabadhan 17 jirka ah waa gabar aad iyo aad u wanaagsan intuu qof bili-aadan wanaagsan yahay oo diinteedii akhlaaqdeedaba ka dhisan. gabadhan waxay isku diyaarinaysaa in ay jaamacad gasho ama waa ardayda dugsiga sare ka baxay oo jaamacad bilaabi raba. waxaa la dhashay wiil yar oo 10 jir ah. maxamed sanad kadib markii xaaskiisa dhimatay wuxuu bilaabay inuu xaas labaad guursado si ay ilmaha ula koriso. wuxuu la tashtay gabadhiisa sucaad ah si yacni u weydiiyo xaaskan uu guursanayo. way ku faraxday, laakiin sucaad waxay soo xasuusatay magacii loo sheegay iyo xaaskii aabaheed uu dhahay waa guursanayaa. waxay ogaatay inay tahay qof aan aad u wanaagsaneyn. kadib aabaheed waxay ku tiri aabe qoftan kuma wanaagsane ee iska daaha guursanaynin. laakiin aabaheed umuunan joojinin, xaaskii uu guursaday. waxaa dhacday 2 bilood kadib inuu xaaskii iska furo. sababta oo ku furan ay ahayd in asaga iyo walaalkiis ay isku dirtay ama ay iska hor keentay, ayadoo walaalkiis maxamed oo la dhashay ee tiri yacni wuu aflagaadeeya ama hadallo xunxun oo ugu dhahaa. markuu maxamed ogaaday inay walaalkiis yacni been ay ka sheegtay oo ku been abuuratay, sidii ayuu ku furay. gabadhaas uu furay lama guursanin sababtoo ay waxay gabar aada iskula waaweyn oo aada u kibir badan. maxamed wuxuu bilaabay inuu yiraahdo waxaa rabaa xaas ilaahay ka baqdo oo wanaagsan in aan guursado. xaas kale ayuu raadiyey. wuxuu yacni helay gabar walaalkeed uu yahay yacni dad mansab leh oo yacni nin lacag leh ama dhaqaale haysto oo dadka taajiriinta ka mid ah. marka wuxuu dhahay xaaskaas aan guursanayo walaalkeed ninkaas waaye oo maxaa la dhahaa dhaqaalaha haysto, wuxuuna iga taageeri doonaa dhanka ganacsigeeda ama shaqadeeda. sidii ayuu gabadhii ugu tagay. wuxuu u sheegay inuu 2 cunug haysto, inayna 2diisa cunug ee u daryeesho. laakiin waxay tiri maya, aniga adigaa kuu baahanahay, ilmahaaga waxba igama gelin, baryaan ka ahay oo gabadha walaalkeed ayaga ha daryeesho iyo nafteeda. okay ku dhahay. sidii ayuu maxamed xaaskii kusoo guursaday. markay guriga isla soo degeen ee muddo bila nabad iyo waxaan ku dhahay wanaag lagu wada joogay, bil kadib islaantii waxayba noqotaba qof miciyo leh oo bahal ayayba kusoo baxday. waxay bilaabday inay gabadh yareed isbarbar dhigto, inay yacni ayadoo kala tahay isku moodo, inay gabadhi xasado, inay yacni aabaheed ka xigsato, in ay bilaado inay si maalin walba waxay ku fakeray gabadhan si ay guriga uga bixi lahayd hal maalin mar walba waxay ku fakartaa gabadhan si guriga uga saari lahayd. laakiin qudadii degtabo ilaahay wuu ka fashiliyaa. waxaa dhacday maxamed in yacni ka dhaadhiciso gabadhan maxaa jaamacad u dhiganaysaa, naag weyn waaye, nin ku dar, maxaa jaamacadeeda ka faa'iide, lacagay kaa khasaarine. laakiin dab jalaq uma sii maxamed. markay aragtay inuusan hadalkeeda ku soconin, waxay bilaawday in yacni maxamed aad ugu xanaaqdo oo yacni asaga dhanba ciil uu ka haayo, soo yacni amarkeeda u qaadan waayo. waxay bilaawday asbuuc kadib maalin maalmaha ka mid ah maxamed markuu shaqadii ka yimid, ayadoo waxaa ku dhahay aad u moodid inuu tuug bursanayo, tuugnimo adiga wax qarqarsanayso oo hadalka qarinaysa maxamed u imaada. markaas waxay dhahday
maanta wax ma ogeyd, ceebaa nagu dhacday, waa fadeexownay, markaa adiga shaqada aaday, anigana maxaa la dhahaa suuqa adeeg yar ka doontay. haddii aan guriga imaadabo masabo wiil dhalinyaro ahaaba guriga kasoo baxaayo, gabadhaan gabar ma ahan, gabadhaan shaqo waa inaad ka qabataa, gabadhaan waa inaad saan yeeshaa. maxamed wuxuu ahaa aaba aada u degan oo naxariis badan. waxay sugaysay ayada inuu gabadhiisii inta qabto dilo ama wax kale oo aada u daran oo ku sameeyo, laakiin wuxuu sameeyey, wuxuu u wacay Sucaad, wuxuuna weydiiyey arinka eedadid ee sheegayso in uu run yahay inuu been yahay. laakiin Sucaad waxay tiraahday way inabaysaa aabe, aniga wiil iima imaanin, gurigana maanta banaanka xataa kama aanan tagin. waxaa soo orday wiilkii yaraa ee 10 jirka ahaa ee Sucaad la dhashay, wuxuuna yiri aabe, maantoo dhan aniga iyo Sucaad waxaan wada aqrisanaynay ama xifdinaynay qur'aan. subxaan allah, ayadana waxay sheegayso waa waxaan caadi ahayn. maxaa soo socda? ilaahay wuxuu yiri dulmiga nafteyda ka xarime ee adinka isdulminina. markuu arkay maxamed si ugu indha cadeynayso ee u leedahay anaa arka wiilka baxaayo, anaa arka saan, wuxuu dhahay waad dhaaranaysaa, waad soo weysaysanay, kitaabka ayaadna gacanta gelinaysaa. gabar yahay ogsoonaa wuu ku yiri maxamed inuu nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam qof haddii uu qofku been abuurto oona dhaarto, ilaahay wuxuu la kulmi doonaa asaga oo maalinta aakhiro ilaahay asoo xanaaqsan oo la kulmi doonaa, ama ilaahay kuu xanaaqi doono. haddaba ha isku dhaaranin haddii gabadhan aan beed ka sheegaysid. si ay iskaga dhaadhiciso maxamed, gabadhan ay guriga uga buriso ayay soo weysiisatay ayadoo marna cabsanaysa, haddana waxay ku indha adeegtay in ay kitaabka gacanta geliso. subxaan allah, maxaa dhici doona? kitaabkii ayay sidii ugu dhaaratay. galab ayay ahayd ama habeen. waxaa lagu yiraahday Sucaad, waxaa ogaataa in aad aadi doontid abtiga xaafadiisa beri subaxdii, isdiyaari. habeenkii waxay seexatay Sucaad ayadoo aad u murugsan oo aad u walwalsan. subaxdii markay soo kaceen, ayadii aabaheed waxay isku raaceen inay tareen raacaan oo aadaan xaafada abtigeed. laakiin maxaa dhacay? waxaa soo orday wiilkii yaraa ee 10 jirka ahaa. markaas wuxuu yiri aabe, soo laabo, wax ma ogid, gurigu soo laabo, xaaskaagii marnaba ma ahan mid dhaqdhaqaaqaysa jirkeeda, weyna oynaysaa. wuu soo orday maxamed iyo Sucaad oo gacanta iska heystaana iska soo daba carareen. ma haddayba soo galeen waaba ayadii oo gacantii ay kitaabka gelisay ay ku dhaaratay, kitaabka qur-aanka gacantii ay gelisay aanan dhaqaaqaynin. gacanta kaliya maahane dhammaan jirkeeda oo dhan uu nuuxsigii gabay. waxay bilowday inay cabaado oo ay tiraahdo maxamedow, been ayaan kuu sheegay, gabadhaadana beri waayo oo been ayaan ka nabaayay, ilaahay ayaa u toobad keenay, iska kii cafiya, mar dambana xumaantaas ma sameyn doono. laakiin maxamed dhagjar hadalkeeda umuuna siinin, meeshii ayuu ku furay. asaga iyo ilmihiisii waxay galeen nolol aada u farxad badan oo aada u degan. maxamed wuxuu aada uga shalaayay doorashada uu doortay xaaskaas qaabta daran iyo gabadhiisa uu kula dhici rabay in uu iska fogeeyo. qisadeenii halkaas ayay inoogu dhamaatay. maxaad adiga ka fahantay? maxayse kula tahay? dad badan ama xaasas badan ayaa dulmiyaan ilmaha nimankooda dhaleen. eedooyin badan ayaa sidaas sameeyaan. waxaan dhageystay sheekh xaliiki la ahaa oo ka sheekeynaya qisas sidaas oo kale ah. gabar xaas Soomaali waaye, waa dhaqtara kula kulmo dhahay Hindiya sheekha. ayada dhan wuxuu dhahay lugaha ilaa iyo hoos dhan ayay ka guban tahay.
marka waxaa ku dhahooda maxaa dhacay qisada iiga sheekeysa gabar ninkeyga dhalay oo ilmaheyga ka agtigsaneed oo ka qatarsaneed ayaan nacbeystay tiri oo dhaa. markaasaa maalintii dambe dhahay guriga ayaa isla hagaajinaynaa oo yacni waa rusheynaynaa biyo kuleel ah. markaasaa biyihii aan ku daadiyey tiri. subxaan allah. markaasaa gabadha yareed lugaha hoose aa soo kogeen. ayadan ilaahay wuxuu qadaray 6 bilood kadib ayada oo waqlal loo dhigaayo, ayadoo umul weliba 40 ku jirto, in digsidii sabta ahaa uu ku gadoomo. ilaahay waa qafuur raxiim. dulmiga ilaahay wuu manciyey, annagana wuu naga manciyey. walaal ha dulminin qof walaalkaa ah. qisadan waxay noo faa'iideynaysaa in aan iska ilaalino dulmiga, in aan iska ilaalino xasadka, in aan iska ilaalino xiqdiga. waa yacni madaxa aada ii xanuunayo, waa idinka raali gareynayaa codkeyga hadduu aada u qaab daran yahay oo si fiican idiin soo gaarin. intaa ku kulmi doono qisada lamid ah waa idin salaamayaa. maalmahan fadliga badan dhammaanteen aan ka wada faa'iideysano. wasalaamu calaykum.